kulan waxaan wanaagsan idin ahaantiinba meel bood joogtaan iyo si walba isla maqalkan idin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khilaafka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo cirka isku shareeray kadib markii maamulka Puntland ay la hormaadeen shuruudo adag madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garowe halkaasi oo haatan la filayay in gebi ahaanba madmadow siyaasadeed u dhaxeeyo maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda dhexe in la soo afjaro ayaa haatan waxaa soo baxaya war la xiriiray in gebi ahaanba shirki u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Deni uu guul darro ku soo dhamaaday. Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland ayaa la sheegay in uu loo imaaday shuruudo gaaraya 3 ilaa 4 qodob kuwaasi oo laga dalbanayo dowladda federaalka Soomaaliya in ay wax ka bedel ku sameyso arrintaasi gebi ahaanba madaxweynaha waa uu iska diiday waxaana la filayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo haatan u dhamaatay 100 maalmood inuu dib ugu soo laaban doono magaalada Muqdisho kadib markii safarkiisii Puntland uu ku tagay gebi ahaanba guul darro uu ku soo dhamaaday. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa shaaca ka qaaday dagaal uu la gali doono dowladda Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ay soo farageliyeen halkii sano ee baarlamaankiisu ay ugu dareen in madaxweynaha madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu noqon doono ilaa iyo 2024 waxaa soo baxaya warar la xiriira in maamulada dalka gebi ahaantoodba ay qorsheynayaan in ay hal sano iyo sidoo kale waxyaabo la mid ah ay ku darsadaan dowladda federaalka Soomaaliya oo bayaan arrintaasi ka soo saartay ayaa sheegtay inay gebi ahaanba u dul qaadan doonin in madaxda maamul goboleedyada ay ku darsadaan madaxweynaha isla markaana gebi ahaanba ay ka buuxdaan wadadii iyo sidoo kale doorashooyinkii la filayay in laga qabto maamul goboleedyada dalka. dhanka kale waxaa la sheegayaa in iyadana socoto waan la rabo in lagu kordhiyo madaxweynaha Axmed Kaariye Qorqor madaxweynaha maamulka Galmudug oo haatan ku sugan furimaha hore ee dagaalka ay kula jiraan ururka argagixisada Al-Shabaab. dhanka kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo la yaab leh oo laga helayo xarunta guud ee hay'adda sirdoonka qaranka NISA kadib markii Mahad Karatay oo ah horjoogaha ururka argagixisada Al-Shabaab la sheegay in uu kulan kula qaatay xarunta Habar Khadiijo ee hay'adda sirdoonka qaranka NISA Mahad Salaad iyo sidoo kale wasiirka diinta iyo awqaafta ee Soomaaliya Mukhtaar Robo Abu Mansuur. haddaba mas'uuliyiintani maxay ka wada hadleen maxaase ay tahay sababta Mahad Karatay oo ah horjoogaha ururka argagixisada Al-Shabaab uu u tagay hay'adda sirdoonka qaranka NISA xarunteeda guud ay ku leedahay magaalada Muqdisho. haddaba maxaa rubowday hadalkii Faad Yaasiin ee ahayd in Mahad Salaad iyo sidoo kale siyaasiyiin la mid ah ay yihiin ururka argagixisada ay ka tirsan yihiin isla markaana ay wada shaqayn u leeyihiin miyaa soo baxaysa mise Mahad Karatay ayaa raba inuu dowladda isku soo dhibo. haddaba waxaan idinka haynaa arrintaasi xog la yaab leh oo ka soo baxayso xarunta guud ee hay'adda sirdoonka qaranka NISA waxaana ku faahfaahin doonaa warkeena qaybaha dambe hadduu eeba yiraahdo. waxaa iyadana isa soo tarayo walaac xoogan oo laga qabo amniga magaalada Muqdisho kadib falkii ka dhacay Hotel Xayaat oo haatan iyadana ay ka soo baxayso faahfaahin dheeraad oo ku aadan in gebi ahaanba qaraxaasi iyo sidoo kale weerarkaasiba ay ka dambeeyeen siyaasiyiin caan ah iyo sidoo kale kuwo xilal hore u soo qabtay iyo waliba kuwo haatan xilal hayo. waxaan idiin soo gudbin doonaa xog lama filaan ah oo ka soo baxayso mulkiilayaasha hoteelka iyo waliba siyaasiyiin ayagu aad ugu dhadhow mulkiilaha Hotelka Xayaat oo aan ogeyn wixii ka dhacay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. guud ahaan qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan ayaa warkeena idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markaad kugu horeysay bartaan soo booqatay channelka subscribe sar oo gaarsiya asxaabtaada kale haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashada halka ka sii wad. aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan wali magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland kadib safar uu halkaasi ku tagay. safarka madaxweynaha ayaa ujeedkiisa ahaa in gebi ahaanba la turxaan bixiyo madmadow u dhaxeeya maamulka Puntland iyo sidoo kale dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tan iyo intii la soo doortay ma jirin wax kulana oo la qaatay madaxda dalka ugu sareysa markii laga reebo xilligii dhaarinta ama xilka loo dhaarinayay oo ay imaadeen madax ka mid ah maamul goboleedyada iyo waliba beesha caalamka. intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu bilaabay safarro uu ku bixinayo wadanka gudihiisa iyo waliba dibadiisa waxaana safarkii koowaad uu ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed halkaasi oo uu kulamo kula qaatay madaxda maamulkaasi iyo waliba dadka barakacayaasha ee kusoo barakacay gudaha magaalada Baydhabo iyo sidoo kale agaarkan.
iyadoo safarkii labaadna uu madaxweynuhu ku tegay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaasina uu sidoo kaleeto kulamo uu kula qaatay madaxa dalka ugu sarreysay iyo weliba dadka kusoo barakacay gudaha dalka soomaaliya waxaa iyadana intaasi kadib madaxweynuhu uu safaro ku bixiyey caalamka intiisa kaleeto iyadoo weliba madaxweynuhu uu 3 ilaa iyo 9 safar uu ku tegay wadanka dibadiisa puntland iyo sidoo kale jubbaland iyo weliba maamulada kaleeto waxa ay tabanayeen iyadu in uu gebi ahaanba madaxweynuhu uu gacan bidixeeyey isla markaana booqashadii uu gobolada qaar ku tegay inuu gebi ahaanba uusan ayagu wax safara uusan ku imaanin arrintaasi ayaadna moodaa in madmadowga ugu badan ee puntland iyo jubbaland ay tabanayaan ay taasi kow ka tahay dhanka kaleeto tabashooyinka ay qabaan maamuladani waxaa iyadana ah in gebi ahaanba lagala tashanin soo doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba magacaabistii golaha wasiirada dhanka kaleeto puntland ayaa haatan shuruudo adag hor dhigtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyagoo weliba ka cod dalbanayo in ra-iisul wasaaraha uu caydhiyo arrintaasi ayaana xalayto waxaa soo baxaya warar la xidhiidha in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka codsaday in puntland ay siiso muddo gaadhayso ilaa iyo 6 bilood taasi oo gebi ahaanba uu rabo in ra-iisul wasaaraha uu ku caydhiyo horey waxaa looga bartay madaxweynaha in uusan la shaqaynin ra-iisul wasaarayaashiisa islamarkaana 5 sano ee uu hayay xukunka ama 4 sano ee horey uu qabtay xilka madaxtinimada dalka soomaaliya in ay soo martay in ka badan 3 ra-iisul wasaare kuwaasi oo gebi ahaanba ka ugu badan uu joogay sanad iyo waxyar haatan madaxweynaha ayaa laga filayaa ama jubbaland iyo sidoo kale puntland ba uga fadhiyaan in ra-iisul wasaaraha uu gebi ahaanba xilka ka qaado taasi bedelkeedana qof ayaga ay rabaan ay haatan keensadaan arrintaasi madaxweynaha waa uu iska diiday waxaana u sheegay in arrintaasi gebi ahaanba ay haatan loo baahnayn horey wixii loo soo marayna gebi ahaanba aan dib loo xasuusanayn haatanna in dowladda ay la shaqeeyaan oo dowladda ay la jaanqaadaan ay tahay lama huraan horey siciid cabdulaahi deni oo ka hadlayay xafladii 26 juun waxa uu sheegay in ay tahay lama huraan in dowladda lala shaqeeyo islamarkaana ayagu ka puntland ahaan ay garab istaagi doonaan madaxda dalka ugu sarreysa weliba madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale siciid cabdulaahi deni waxay ahaayeen labadii nin ee sida weyn oo la dagaalamay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo laakiin isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa soo baxay warar la xidhiidha in puntland ay rabto inay dowladda xidhiidhka u jarto bedelkeedana ay ethoobiya iyo sidoo kaleeto dowlado lamida ay haatan soo dhaweysato waxaan ogeyn isbuucii lasoo dhaafay in saraakiil ka socota dalka Ethiopia ay gaadheen magaalada Garowe halkaasina ay kulamo kula qaateen madaxda ugu sarreysa maamulkaasi isla isbuucaasi gudihiisa waxaa tagay halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo haatan booqashadiisa labada bari ahayd ay maanta ugu eg tahay taasi oo haatan la sheegayo in madaxweynaha ay ku adkaatay gebi ahaanba in Siciid Cabdulaahi Deni uu ka gado siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud arintaasina ay adkaatay la filayana in kulanka uu sii balaadho ilaa iyo 3 bari oo kale madaxweynaha uu sii joogo xarunta maamulka Puntland ee caasimadda Garowe waxaa sidoo kale iyadana isu soo tarayso in halkaasi ayadana waanta ay qayb ka yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya iyo waliba saraakiil kale oo iyaguna ku weheliyay booqashada madaxweynaha uu halkaasi ku tagay gabihaanba Siciid Cabdulaahi Deni waa laga dhaadhicin layahay in ra'iisul wasaare Xamse uu xukunkiisa sii haysto isla markaana uu sii noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya arintaasina Puntland iyo Jubbaland gabihaanba gaashaanka iyo u daran maamulka Jubbaland war ka soo baxayna waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya gabihaanba aysan la jaan qaadi karin siyaasadii ka jirtay dalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in gabihaanba Jubbaland aysan haatan waxba uga fadhinin dowladda federaalka Soomaaliya waxna uga baahnayn waxaana horay Axmed Maxamed Islaam uu sheegay in uu yahay jamhuuriyad madax banaan isla markaana cidda uu rabo asagu dhaqaale u doonanayo isla markaana dowladda federaal oo Soomaaliya uusan la shaqeynay 5 sano la soo dhaafay dowladii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Axmed Maxamed Islaam goori ayuu ka tagnaa oo waxaan ogeyn in dagaal adag ay halkaasi ku galeen waxaa sidoo kale taatan soo taraya in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay farigelin ku sameysay halkii sano ee loogu kordhiyay maamulkaasi laakiin dowladda Axmed Maxamed Islaam waxa ay sheegeen in aysan marnaba u dul qaadanaynin farigelinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo la tashlaanta ay ku hayso maamulada qaar iyo waliba gacan bidixeynta siiba ay ku hayso dowladda Xasan Sheekh Maxamuud maamulka Jubbaland waxaana ay sheegeen in ay dagaal la gali doonto si dhabana ay ula dagaalami doonaan maamulka Xasan Sheekh Maxamuud
waxaa iyadana horay arintaasi ama go-aankaasi go-aan lamid u qaatay maamulka koonfur galbeed oo uu hogaamiyo cabdicasiis laftagareen iyadoo isbuucyadii ugu dambeysayba ciidamo ka socda dalka Ethiopia ay kusoo qulqulayeen gudaha magaalada Baydhabo. haatan garoonka magaalada Baydhabo waxaa si toos ah gacanta ugu hayo ciidamo ka amar qaata cabdicasiis laftagareen kuwaasi oo ka socda dalka Ethiopia. ciidamadan ayaa isku jira ciidamada liyu booliska dowlad deegaanka Soomaalida, kuwa deegaanka iyo waliba kuwa ciidamada militariga ee dalka Ethiopia, kuwaasi oo gabi ahaanba sheegay inay la shaqayn dhow iyo waliba xiriid ay la sixideen maamulkaasi, isla markaana haatan ay tahay sidii ay urka argagixisada uga caawin lahaayeen la dagaalankiisa iyo waliba nabadeynta deegaanadaasi. laakiin arintani siyaasiyiin badan iyo sidoo kale dad badan ayaa shaki weyn geliyay maadaama halka sana ee uu cabdicasiis laftagareen ku darsaday dowladdu ay ka hor imaatay, isla markaana ay sheegtay in gabi ahaanba maamulada halka sana ku darsanayo in ay si toos ah ula dagaalami doonto. dowladda haatan waxa ay jirtaa muddo gaadhayso 100 maalmood, taasi oo la rabay in 100ka maalmood wax looga qabto madmadowga siyaasadeed u dhaxeeya maamulada qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo haatan aad moodo in ay si kala fogaanayaan. safarkii madaxweynaha uu ku tagay Puntland magaalada Garowe haatan waxaanu ka soo sheekeynay in madaxweynuhu iyo sidoo kale madaxda kale ee Puntland ay haatan ay ku heshiin laayihiin wixii madaxweynaha halkaasi u tagay ee ahayd in Puntland laga dhaadhiciyo in dowladii ay dhimantahay, isla markaana wixii Ilaahay uga qoray ee halkaasi ka qaateen. laakiin arintaasi ay Puntland ku qancilaadahay oo go'aankooda kelita uu yahay in ra'iisul wasaaraha xilka laga qaado. gabi ahaana madaxweynaha safarkiisa halkaasi waxa uu ku soo dhamaaday guuldaro. dhaga kaleeto safarkii ra'iisul wasaaraha uu ku tagay magaalada Beledweyne ayadana waxaan ogeyn wixii ka dhacay halkaasi ee foosha xumaa in ra'iisul wasaaraha lagu aflagaadeeyay halkaasi, isla markaana lagu sheegay inuu yahay jaajuus ka socdo dalka Ethiopia. guud ahaan safaradii uu ku tagay madaxweynaha dalka dibadiisa laftirkooda intooda badan waxa ay ku soo dhamaadeen guuldaro. waxaan ogeyn safarkii Masar uu ku tagay in dowladda federaalka Ethiopia oo haatan daris aynu nahay, isla markaana in ka badan 10 milyan oo Soomaaliyeed halkaasi ku nool yihiin in ayagana calaqaadkoodii uu xumaaday oo haatan aan ognahay shalayto in ciidamadii ugu badnaa abid oo ka socda dalka Masar ay ka soo degeen garoonka Aadan Cadde, kuwaasi oo ayagana diyaarsanaya saldhig military oo ay rabaan inay duulaan uga qaadaan gudaha dalka Soomaaliya, isla markaana ay duulaan ku qaadaan dalka Ethiopia laga abaabulayo gudaha dalka Soomaaliya. arrintaasi ayadana waa fashil kaleeto oo madaxweynaha uu ku dhacay. dhanka kaleeto waxaan ogeyn in weeraro badan ay ka dhaceen agagaarka magaalada Kismaayo iyo waliba gudaha magaalada Muqdisho. waxaan ogeyn wixii ka dhacay Hotel Xayaat oo ayadana ahayd mid aad ummadda Soomaaliyeed oo la fajacday qaabkii loo maareeyay iyo waliba in dableydii halkaasi gashay ee dadka ku dhamaysay ayaguna si nabada ay uga baxeen sida uu sheegay afayeenka ururka argagixisada Al-Shabaab. haatan waxaa soo baxaya fadeexad la yaab leh oo ka socoto gudaha xarunta hay'adda sirdoonka qaranka NISA, taasi oo haatan la sheegayo in shir saddex geesooda u dhaxeeya Sheekh Mutaar Rubo oo Mansuur oo ahaa horjoogayaashii hore ee ururka argagixisada Al-Shabaab iyo waliba Mahad Karatay oo haatan horjooga kamid ah horjoogayaasha ururka Al-Shabaab iyo Mahad Salaad oo ah madaxa hay'adda sirdoonka qaranka NISA in ay shir halkaasi ku yeesheen, taasi oo ayadana fadeexad la yaab leh ku noqonaysa dowladda federaalka Soomaaliya. horay khubarada amniga dalka Soomaaliya horay usoo qabatay iyo waliba kuwa ka faaloodaba waxa ay dowladda ku eedeeyeen in madaxa hay'adda sirdoonka uu yahay xubin kamid ah horjoogayaasha ururka Al-Shabaab. haatan loo dhiibay madaxa hay'addaasi ayna dowladda Xasan Sheekh Maxamuud arrintaasi ay fashil weyn u keeni doonto. qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho intii madaxweynaha uu haatan xilka haya oo 100 maalmooda waxa ay gaarayaan in ka badan 30 qarax kuwaasi oo ka dhacay gudaha magaalada iyo waliba agaarkeed. inta badan waxaan xasuusanaa iyadana in 100 maalmood ee madaxweynaha haatan u dhamaatay in qaraxii ka dhacay magaalada Jowhar ay ku dhamaadeen mas'uuliyiinta iyo waliba saraakiisha ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka Soomaaliya in ayadana ay ahayd xaalad aad murugo u leh oo ay ku dhinteen in ka badan 30 xubnood oo ka u shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya. xataa shacabku waa u badnaa, laakiin arinta ugu daran ayaa ah ama yani inta badan la hadalaya ayaa ah mas'uuliyiinta aadka u tirada badan ee halkaasi mar
walba lagu xasuuqayo shacbiga Soomaaliyeed marar badan dhibaatooyin kala duwan ayay maraan oo waxaan ognahay qaraxyo badan oo ay kamid tahay qaraxii Soobe iyo waliba kuwa waaweyn in ay ku dhamaadeen aysan jirin cid wax iska weydiisay laakiin inta badan ay tahay warbaahinta iyo waliba dhanka dawladda inay buunbuuniyaan halka sargaal ay ka dhinto iyo waxyaabo lamid qaraxii hotel Xayaat iyo weerarkii ayadana waxa uu ahaa mid murugadeeda leh waxaana halkaasi ku dhintay dad aad u tiro badan oo gaaraya 40 qof sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya laakiin shacbigu waxa ay sheegayaan in dadku ay intaasi ka badnaayeen oo dadkii meeshaasi joogay ay gaarayeen in ka badan 500 qof inta ay dawladdu qirtay in la badbaadiyana ay ahayd wax ka yar 300 tirada inta kale soo hadhayna ay yihiin dhaawac iyo dhimashadii halkaasi dhibaatadu ay ka soo gaartay waxa sidoo kale to ayadana jirtay in ciidamada laftirkooda ay isku khilaafeen qaabkii loo maareeyay howlgalka hotel Xayaat oo ayadu dhibaatada ay ahayd meeshii ay ka socotay laakiin waxyaabaha ugu daran ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya ayaa ah in dawladii iyo sidoo kale to laamihii ammaanka iyo waliba ururadii argagixisada lala dagaalamayay ee ciidamadu ay habeen iyo maalinba duurka u bariyeen in ay haatan tahayba ama ay ku shirayaan gudaha xarunta hay'adda sirdoonka qaranka NISA oo ay isku milmeen waxaan ogeyn in isbuucii la soo dhaafay iyo waliba labadii isbuuc ee u dambeysayba in madaxda dalka ugu sareyso ee gaar ahaan Villa Soomaaliya in ay ka jirtay kala shaki weyn taasi oo markii dambe dhalisay in madaxda ugu sareysa dalka ay safar ay galaan sifo loo xaqiijiyo amniga guud ee xarunta madaxtooyada dalka Soomaaliya oo ayadu la sheegay in ay halkaasi ku dhuumaalaysanayaan dabley ku dhex dhuumaalaysanayso shaqaalaha dawladda ee halkaasi ku sugan waxaana jirtay in labadii jumce u dambeysay gabi ahaanba aan lagu tukanin masaajidka weyn ee ku yaala madaxtooyada dalka Soomaaliya waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa oo ku hawlanahay xogaha rasmiga ee la xiriira kulanka saddex geesoodka ee Sheekh Mutaar Robow Abu Mansuur iyo waliba Mahad Kartay Mahad Salaad u dhaxeeyo iyo sidoo kale waxyaabaha ay isku afkarteen haddaba kulankaasi iyo waxyaabaha ka soo baxa warkeenan warka xiga ayaan idinku soo gudbin doonaa haduu eeba yiraahdo guud ahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa war waxaan dhaliyay dibadba idinka intaan warka xiga ku kulmi doono waxay naga tagay sidaas iyo amaanada